16 bishan November oo ku beegan maalinta barita haddii aan xal siyaasi ah laga gaarin muranka doorashooyinka. haddaba wariyahayaga Qadar Maxamed Cakule ayaa inoo haya faahfaahintii ugu dambeeyay ee wararka arrimahaasi la xiriira. Qadar haye aad iyo aad baad u mahadsantahay Mascad. sida aad sheegtay magaalada Hargeysa waxa ka socda oo shirar ku leh hoggaanka labada xisbi mucaarid ee wadani iyo wicid. shirarkan waxay soo bilowdeen maanta gelinkii hore, haddana gelinkii dambe maanta ay dib la isugu soo noqday, isla markaana ay la caawayeen shirarkaasi soconayaan sida uu xaqiijiyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee u ciidan jiray Faysal Cali Waraabe oo aan la hadlay. waxa gudoomiyaha u cid Faysal Cali Waraabe uu ka gaabsaday inuu sheego shirarkaasi go'aamada ay soo saarayaan, laakiin waxa uu si guud u sheegay in go'aamadaasi ay la xiriiraan waxa ay ka yeelayaan 13 bisha November oo maalinta berri ku beegan oo ah sida ay dadweynaha Soomaaliland iyo guud ahaan Soomaaliduba la wada socdaan maalintii ay sheegeen muddana ku soo hanjabayeen xisbiyada mucaaridka ee Soomaaliland inay kala noqonayaan aqoonsiga madaxweynaha iyo xukuumaddiisa, madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddiisa. dhinaca kale Mascad marka la eego khamiista aynu ka soo gudubnay shirkii golaha wasiirada Soomaaliland ee 102 ayaa waxa markii ugu horeysay lagu sheegay oo xukuumaddu ku sheegtay in ay golaha wasiiradu isku raaceen, xukuumadduna diyaarisay dhinaceeda wixii mas'uuliyad ay ku lahayd doorashooyinka. waxa sidoo kale ay sheegeen in doorashooyinkaasi loo raaci doono isla markaana ay hay'adda madaxa bannaan ee guddiga doorashooyinku tahay ta ku shaqada leh. markii ugu horeysay hadalka noocaas madaxtooyada ka soo baxo, isla markaana waxa lagu xusay in dhinaca ammaanka ama security-ga ay xukuumadda Soomaaliland diyaarisay wixii kaga beegnaa doorashooyinka, sidoo kalena arrinka dhaqaalaha ama maaliyadda in saasoo kale ay diyaarisay wixii kaga beegnaa. dadweynahana waxa loogu baaqay in ay codaynaya u diyaar garoobaan doorashooyin si nabadana uga qayb qaataan. isku soo wada duuba maalinta berrito 13 November waxa dadweynaha Soomaaliland isha ku hayaan qaraaraadka iyo go'aanada ka soo bixi doona dhinaca xisbiyada mucaaridka oo hore ugu hanjabay haddaan la gaarin inta ka horeysa heshiisyo siyaasi ah ama xal siyaasi oo la xiriira muranka doorashooyinka. waxa xusid mudan in inkastoo xaqiiqan aanu haynin ay sheegayaan warar soo baxay in labada dhinacba beesha caalamku ay culays saareen la xiriira in la isu soo dhawaado la wada hadlo. marka isku soo wada duubtana waxa muuqata warka xagga madaxtooyada khamiistii ka soo baxay iyo hadalkii maalintii dhaweyd musharaxa jagada madaxweynaha xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro uu sidii hore labada luuqadoodba ka duwanaayeen marka indha siyaasiga lagu akhriyo ama lagu eego, laakiin waxa la eegaya ama la dhowrayaaba waa go'aamada xisbiyada mucaaridka iyo 13 bisha November iyo waxa ay noqdaan. waa tahay aad baad u mahadsantahay. kaasi waxa waa wariyahayaga Qadar Maxamed Cakule oo isagoo jooga magaalada Hargeysa inoo waramayay. dalkan Mareykanka waxaa weli gobolada qaar ka socota tirinta codadka doorashadii xilliga dhexe ee Mareykanka iyadoo aanay weli kala